Dhawahay Universal TV aad baan idinka mahad celinayaa run ahaantii qof walba oo Puntland jooga iyo qof walba oo dhalinyaro ah iyo gabdhahaba waxay uga dhigan tahay farxad iyo guul u soo hooyatay maadaama meesha tartan adag ka dhacay oo aawada ogeedeen in saddex qof oo rag ah meesha ka tartamayeen halka waxa ka cadaanaysa in doorasho xaq iyo cadaalad ay ka soo baxday guul baan rajeynaya أنا دورشة مركز سعودي. درسي markay socotay gool baan rajeynaa waayo dhalinyaro social media aad bay garab isiiyeen umar walba khadka galo sawirkayga Facebook ku arkay dhalinyaro aqoon soo dhigayay dhalinyarada kale iyaguna sidoo kale oo magaalada joogay dhiirigelintii waxay ugu kaliftay inaan xogaan is adkeeyo maxaa leedahay marka dalada dhalinyarada waa ka qaban insha Allah horta waxa laga bedeli doona rag iyo dumar waa la ka arki doona oo hogaankan hadeer waa lagu arki doona waxyaabaha noo qorsheysan ka bedeli doona insha Allah waxa isku xirka dhalinyarada iyo horumarinteeda sidoo kale dhalinyarada baahiyaha gaarka qabto oo meelaha iskaga dayacano sida dadka indhaha la dadka curyamada ah dadka dhagoolada ah in garab weyn la siiyo oo loo sameeyo u qareemid waayahay gabdhaha kale marka xilliyada doorashada galayaan oo kale maxay kaga dhigan tahay doorashada waxay kaga dhigan tahay in gabdhuhu imaan karaan oo wadadii u furmatay in gabar imaan karto hogaanka dhalinyarada ay qaban karto wadada ahayd baa u furmatay